الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalyaal maanta waa maalin murugo leh xusni leh waxaa dhintay nin odayaasha dacwada ka mid ah oo Sheekh Cali Sani la dhahay oo xabaabta Nairobi ah janaasadiisa ummad badan ayaa iskugu timid inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waan u tacsiyeynaa khaasatan ehelkiisa meel kasta ay adduunyada ka joogaan ilaahay sabr iyo iimaan inuu ka siiyo dadka muslimiinta sidaas oo kale sabr iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo nin daaci yahay nin axbaabtu yahay nin muslim buu yahay nin oday buu yahay nin mashaayikhda ka mid ah dacwada Nairobi Baytulmaal khaasatan waqti badan camalkan ku jiray hadda quruj 4 bilood ka soo noqday ijtimaaca Soomaaliya ka soo noqday hadda ku jiray markaska iyo isku habeentiisa tacmiirka nin oday ahay asoo salaada maghrib tukaday oo ka baxay kursiga ku fadhiyo adkaartii bacda salaad akhrinayo meesha fadhiyo ee ugu timay geeridii iyo waqtigii wafaadka taasna waxay ku tusaysaa walaaliyaal qof kastoo wanaagsan oo camal wanaagsan sameeyo ama wax wanaagsan ka shaqeeyo inuu waqtigu dhimanayo ilaahay uu hagaajinayo khaatimadiisa meel fiican uu ku dhimanayo kor iyo hoos waa dhimanaysa adduunyada ma joogaysa laanno laa shakka fi qofka bini aadanka inuu dhimanayo kullu nafsi daa'iqatul mawt nafkas way dhimanaysa adduunyadan waqti kasta bixisid cimri kasta joogto حديث قصة يا ابن آدم لا تنسى موت فإن موت لا ينساك إن آدمه ميتك سلمامسي أصير ميتك الماما يمو الموت كأس كل الناس شاربه الموت طريق كل الناس قاطع يا ابن آدم يعني ميتك ودو قفك سجونة وأنا كوب وقفك السعبي قفك سوق لمنا الدنيا مالك سكجو حولك السلام مقعك السلام عمرك السلام أنت ربت هاو لخالك سيستفامس كستهو لكن ودي ما نسى taas waa musiibada ugu weyn oo bini'aadan ku dhacdo qofkana dhimashada waa xaq uu dhiman laakiin maxaad ku dhiman goormaad dhiman waqtigee dhiman markaad dhimanaysina maxaa tahay oo camalkee ku dhimatay qaabkee u dhimatay ilaahay raali muu ka yahay ilaahay muu ku jecel yahay adduunyada ma laga jecel yahay markaad dhimanaysa maxaa ka horeeyo qofku waa in badan inuu ka fikiraa qofka inuu xariis uu noqdo adduunyo uu ka fikir lama rabo waa in aakhirana ka fikirtaa waa dhimanaysaa ilaahay baad la kulmaysaa ilaahay waad hor istaagaysaa waa lagu wareysan maxaad soo qabataa adduunyada midda kale qof kasta markuu dhimanayo waxaa calaamad u ah amaashu ku dhintay meeshuu ku dhintay Sheekh Cali maanta maasha Allah Sheekh Cali Sani asoo salaad tukaday salaad waajib tukaday salaadii kale cisha aan dhaweyn kursi ku fadhiyo tasbiix ku jiro adkaar ku jiro annaga waxaan u daninaynaa khayr ayuu ku wafaaday oo masaajidka ilaahay markaska joog adiga marka asaga waa kan waqtigiisa waa qaatay in badan oo camalkan ku jira dacwada ku jira diinta ka shaqeynaa waqtigiisa diinta geli aday maxaa gelisay imisa ilaahay dartiis u baxday imisa diin ka shaqeysay imisa ihsaan samaysay imisa sadaqa bixisay imisa salaada dukatay imisa soontay imisa sakaysay imisa sadaqaysay imisa xajisay imisa umraysatay imisa wax wanaag ku hadashay imisa acmaal aad samaysaa maalinta tasbiix takbiir tahliil tahmiid salli salaad sunno sadaqo maxaa qabataa maxaa ka baxo acmaal oo ilaahay xaqiis ka aado maxaa ka horeeyo wad dhimanaysaa waa socotaa maxaa samaysatay dadka maanta inta badan walaalayaal waqtigooda waxa ku baxay maala yacni heeso ciyaar qosol marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay walaalayaal qofka inuu waqtigiisa ka faa'iideysto adduunyada kor hoos waad ka tegaysaa maxaa kaa horeeyo maanta waa aragteen walaalayaal dhalinyaradii rag iyo gabdhaba social media waxa ka socdo ciyaarta qosolka baashaalka yaano kaano qofka inuusan dhimaninba ama uusan waqtigiisa dhamaanin sidaa darteed marka walaaliyaal waxaad ogaataan in maanta oo kale ay dhici doonto maalin un qabriga lagu geey doono maalin un inaad dhima doonto maalin un dhulka lagu geli doono maalin un waqtigaaga u dhammaan doono 100 sano jir 1000 sano jir 1 sano jir 5 jir 10 jir yar ama weyn ama dhex ama duq ama dhalinyar ama rag ama dumar inay jiri doonto maanta oo kale maanta Sheekh Cali dhacday inay adna maalintaas kala jirid maalin inaad dhima doonto qofka bini'aadankana markuu dhinto oo camalkiisa goo waxa kaliya oo haray waa acmaasha wanaagsan oo adduunyada uga tagay wuxuu qabsaday baa